السلام عليكم dadka igu xiran channelka ku xiran in naafac ku xiran maanta waxaan sharaf ku yeeshay inaan la wareysto walaalkay oo isku magaalada deganahay علي سودا وكسلام يا عبد القادر مستر يو كي يس صاحب والله وكفر حسنين انه ما انت ودا كلني يس صوره السماء انه بدل سلامي هادنا انه جعلستين كودا هادلو inuu wada joogno for example waan ku nimi marka la yiraahdo gobolka Sool mudug magaceeda ka timi ana qorle baan ka yimi waxaan marka xilligii ugu dambeysay dadku waxay ahaayeen dadku mid ah dad walaalaha wada dhashay wili ina tigiyo wili ina yeekiyo waxaan adduunka doon iska dhacay marka waxaan rabaa oo halka ka duulaya dadku siday ahaayeen iyo anaga siyaasaddu sidii dadkii dhaqanka ahaa iyo loogu milmay iyo dadkii reer baadiyaha ahaa ee kali askar intuu qortay dhibaatada deegaankiisa ku soo noqonaysa iyo alaada sokeeya ay ka fikirin marka waxaan doonayaa inaan ka hadlo bal hadda mudug iyo ka hadlo iyo meesha gobolka Sool oo laga soo jeedo waxay codka kor u qaad waxa weeye mudug iyo codka xiran oo niyo qabowgaasi mudug iyo waxaan rabaa inaan ka hadlo gobolka Sool bal aayahooda iyo sida labada marul midba marxalad uga taagan tahay iyo sida ilaa taariikhdii hore marka laga hadlo dadkan waxa weeye Soomaalidu iyadoo siyaasad ka hadlo iyadoo qabyaalad ka hadlaysa siyaasadaysa laakiin anigu qabyaaladu in laga hadlo oo la reehbel farsamada harti baan ka hadlayaa harti waqooyi baan ka hadlayaa isaaq reesh saxaaq baan ka hadlayaa siyaasadan Puntland iyo Somaliland dadkan inay horeba u mareysay mise dib u dhigtay ma laba dabaqadood bay ka dhigtay midna xasabada marayso midna waa lagu tuntay أنا وحرم أنا أرنت على قاعد كهذا أو شمال كاغن ولا يصدق جار أشيء أيوه وهي أكو جاي إنك استمدل المدة كي يقدم بيسي يوكي وهذانا لكن ولي والله صعطة نينا بدي أقول ولا مش وأرنت وعكستوا دعائي سبقوا كسر قاعد وقبح هذا مركز إنه قلت كهذا الله سوالف إنك السياسي qabyaalad bay taageertaa oo soo saartaa oo waxba ula ma hadho markii taageeraysa raas ma kala lahayn laakiin markuu dambi galo oo hebel baa galay anaga masina istiin waa sii difaacaan dhibaatadan iyagu dib u soo celiyaan for example haddaan gobolka Sool kala kaadaas aan dibada las aan ka hadlo las aanood one day lagu ma qabsan 7 sano la soo jiifteynayay ciidamayeen bay soo waday gobolka Sool oo Puntland يقول لك حناقين نوتي مركي ولا كو إنه فراغ كبحض أو قبل كسول كوريكتو قاعد إسلامنا المسؤول كها محاكو شغال بيش هذا خدو صيوا هاينا وكوشية قلت له الأساس كذي ماشي روجسي قرلي مقعد يعني عبد الله يوسف إيو حاب صديق إيو عبد الغني حق كيمي أقول إنه من نوع عسى وحيسمين أنت ميجا قال أو أنا ما أنا الصوم نقول أنت بدنا صوم نقول بكهليين أنا مركب كون في أفريقيا شو قربان شو ولا لسه هاي وحابط لهم بالك أساسا إلا قربوا مركب دم اللي قتلي بطلع سلاح كوسو أساسا قبيل إيو على مركب وقوي إيو كونفورتا قال كأي كتير طبيعي أساس مسيو اسم بيان ما طلع هالك مرحلة أي مرة يسوون أغنى ونقرأنا haddaan idhaahdo waa ka hadlayaa waa balbalaarinaya waxa weeye hadda igama mudna qabiil markay noqotana harti baan wadanahayo aniga cidna baa layguma xanto kana madaxweynaha aniga weliga isirkayga cidna ma xalan laakiin waxa weeye haddii xalasho jirto yani da harti anaa og labada yaa qoraalada ku sheego taasoo kaftan ay noqotay madaxweyne waxaa kaloo jirta arrintan dadkan anigu markii waddankii igu dambeysay sida ay ahaayeen iyo sida ay maanta yihiin waa different waxaasna waxa weeye dadkii reer miyiga ahaa ee dhaqankiiba waxay isu dhiibeen nin siyaasi oo danaysta oo waddanka suuq abuuraya oo dhacaya oo iyaga isku laynaya oo lacag siinaya for example haddaan ku idhaahdo dhakool oo bahar sama iyo gaagaabo Cumar Maxamuud reer mahada baa dagaalka ka dambeeyay cid kasta ha garabsadeene maxaan ku sheegaa cadaada iyo miyiga iyo gumburkeeda ka socotay konko qof dhimatay intaasoo ku barakacday intaasoo ku goblantay intaasoo dhulka wali u seexanayso intaas oo reer baa ku burburay oo maxaa ku sheegaa raadi
isqaba oo aan ilaa iyo hadda caruuriya inta kala maqayn dadkan markaa deegaanka degan arrinta kala fakarayaan waxay ka fakarayaan yaa kula qolaa iyo yaa waxaysta yaa kursa haysta iyo yaa berito magac leh magaca dib haddii loogu noqdo sideedaba harti berigii hore taariikhda markaynu qaadano haddaynu guba soo qaadano guba caqli baa lagu wada hadlayay qabyaaladii inta xoraaqa iska dhig waxaad arkaysi kartaa haddii dagaal dhaco oo hartigu dhexdiisa suxmaasada ama daara suxmaasado qamaan iyaan soo qaata calidhuux aday dilayo goorma isaaq dhow laga qaaday maxaa libintoo daarodaa dhibcayuu siiyey wuxuu ka cabanayaa harti calidhuuxna marka dambe muxuu tusaya muxuu leeyahay wuxuu yidhi wuxuu yidhi de wadaag iyaba waanu nahay dawna wada taale bal idoor maxaa igu diran doon lagu sheega de wadaag iyaba waa nahay dawna wada naalo yani anagu abaalka maxaa naga galay marka waxaad arkaysaa interest laisdifaacanayo oo heshiis la kala dhiganayo inay jirtay dadka kala dhiganaya dad xiniyo geela kala qaadaya ahaayeen oo la geelaya baad qaaday maxaa iga galay ka kale ay qaaday waa la baryayay maxay ahaayeen waxay ahaayeen marka runta laga hadlo walbahantahow cumar maxamuud iyo reer bicdiyaha oo cali yuusuf wato iyo calidhuux jarhadda markuu leeyahay calidhuux suunkii hartoo wada fadhiya sheexan gulaheeda sharba inama dhaafin haddaad shalayna dhaaftaane nimanka la yahaa shaaxin waxaa la odhan jiray guutada calidhuux iyo cali yuusuf marka isaaq u gabayo waxaad fahmaysaa inuu leeyahay haleelada waxaan geelayaga hawdka ugu foofi hartaan ay haryagii calina waa isku hadlayna labadooda kaliya in challenge ay isaaq iyo ogaadeen challenge gareynaya ma garanaysaa harti kale ma uusan jirin macalin uusan gari ku dar marka riyaalta laga hadlayo marka taariikhdii sidaa dadka kale maanta ay xitaa isaaqa garxajis buu ahaa inta kale maanta caana laba yahay kabayga calidhuux waad ka fahmaysaa markuu leeyahay haweenku nimankaan haraadka iyo muqorhawta mariskida kolay habar jecliya buusitay way ka helayaan haweenkuna hadday doonaan inay hiliidaan wuu ka xanaaqay waxa weeye dad dagaal iyo dadka kale rabsho iyo xoolo dhac iyo xiniyo wax ku hayn kara oo go-aan fulin kara may ahayn riyaalta qaadmo waxa weeye intaa isu gabayaysa ee ishaysatay ee wasay doonta yeelaysa jambalka waliba calidhuux jookar buu ahaa dagaalada inta badan isagaa riday ogaadeen isagaa dhulka u soo celiyey isaaqna isagaa baabiyey darawish intaba wuxuu ahaa jookar lugtuu doona ciyaara fartuu doona kula jiray nin ka ismaartisanoo hartiyeyna ma jiro idinka yani gabay kasta iyo taariikhasta wax laga helo may jiri karin been abuur badan oo laakiin lagu sameeyey jirta marka haddaynu taariikhdeennii raacnay dadku sidii ahaan jirin realitiga ahayd waxa weeye waxaa imaanaysa in caqligu shaqeeyo oo shalay inaga isdilay labadeenna soo labadii reer ee isxasuuqaya maynaan ahayn maanta ma cid bayna kala celinaysa haddaynu muddo isku dhufayna ala axmed waa maya laakiin waxa weeye waa in caqligu shaqeeyaa oo noqdaa war anagu walaalahay ama ina maxamuud wasamaana wasiirtiisa cumar maxamuudna reer mahadna waa tahay baharsana waa yihiin labadaba awowga ama ahay ama gabadha ka yimaadeen wiil ka yimaadeen gabadha in la yasa maaha wiilka aan awowga gabadha aan awowga ahay ee dhashay ama adeerka aan ahay ee dhashay iyo kaan adeerka oo walaalkay dhalay waa isugu kaymid aniga waxay isugu kaymid yihiin diiniyan bay isugu kaymid yihiin qofku markaa intuu wax walba ka booda inuu yidhaahdo hebel baa dalasama kursiga ku fadhiya ee hal la qaata baalkiisa ordayasa soo laaya wiilbaa lacag loo soo dhiigaa wax soo fuliyaa la yidhahdaa iyagana marka dambe waa la qisaasa ama utuntan uma dhintaan ama walaalkood oo ka qiimo badan oo xabad loo qodhan baa dhinta marka dadkan anigu waxaan jeclay in toos lagu ifiyo intaas horta maanta kusoo gabagaynaya saaxiib waxaan jeclay inaad su-aalay weydiiso wixii aan qari karana weliba markaan basic ka hadlay ama marka aan deegaanka ku noolaa ilaa xilligii SDF baan ku noolaa oo ciidamada Soomaaliya ismaaciil sayid barre ay fadhiyeen qurli ee magacay dhexda intii ay fadhiyeen baa ilmo yar ku ganacsaday ahaa nin 40kii galay haddaan wax u dheereen baa laakiin intaa waan garanayaa oo waxaan ku xidhnaa aabbahay ganacsiga ku lahaa tuulada qurli allahu naxariisto finalkii u dambeeyeyna isagoo anigu aan Puntland ka soo horjeedo mise Puntland والله أنا بيش صوالة دي مرات فريسة مركب وحاطة هي يعني وحنا نقول سكوت دي أنا وحنا عندي كوريني ناس عارضنا مثلا وكنت الصرفايو بقول كيبا بقول قوف بقاها مدح القمر بالصوت بقول شغالة دلوقتي اللي حدا راسكي ساعة يعني الجدود هذا السدا سؤال هاي ويبغى حلاها بيش أصدق السجماء يعني من الناس كمان اللي حنا قبل ذلك كعلم بيش هو الجرس أنا فراها صعب هالليو
waxay gama aha inaan yasayo laakiin waxaan leeyahay yacniga wax waa wada khaldameen oo dadka reer waliba wax waa ka khaldameen reerkii aan ka soo jeeda Bacarsane iyo Jaamac Siyaadna waxay ahaayeen nimankii luuq walba baray nimanka SLM ee dadka baray ee isqaban waayay ilaa iyaga ay isdileen ilaa maanta gawda isku hayaan ama guryahooda ay ka bilaabatay waayo Khayr Cabdi iyo Bacarsane oo filmada isku dhigtay SLM wey kala ma ahay marka waa in la fahmaa war dadkanu imisayna ugu shaqaysanaya kuuga iyo mas'uuliyiinta ee caruurtooda ama qurbaha joogto ama dabaqyada ku jiro ee maalinba waxaan ugu soo dhex tuuraya ee dhulkeena Soomaaliya xoreeyna Soomaaliya caruurteena Soomaaliya ee aan beer dhaxay ku yaalin war inagu miyana u baahnay xitaa qurba joogta aan nahay tan aynu joognay waxaan u baahanahay inaynu fakar la nimaadna aynu ku wajahno qoomiyadaynu la deganahay هذا صاحب كوسامي وعن شعر جنال كان مرة بعد هنا لبعض ما قيبت لبعض بان أنا جن سؤالها كوي دين دونا.